maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa toogtay laba gacan ku dhiiglo oo ka dambeeyay dil loo geystay Allah u naxariistay gabar ardayad ahayd oo lagu magacaabo Nafisa Cismaan Salaad. Labada gacan ku dhiiglaha ayaa lagu toogtay barxadda iskool booliisiya ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo horay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dil toogasho ugu xukuntay. Goobta lagu toogtay labadani gacan ku dhiiglaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Diiban Cali Yarow oo ku dhawaaqay in la toogtay Xasan Maxamed Cabdi Salmaan iyo waliba Shaafici Cabdi Xirsi oo loo yaqaan Shaata, oo ay ku cadaatay in ay ka dambeeyeen dilka Allah u naxariistay Nafisa Cismaan Salaad. Iyadoona sidoo kale goobta lagu toogtay ay goobjoog ka ahaayeen afhayeenka ciidamada booliiska iyo waliba saraakiil kale. Raggan oo maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay hore u xukuntay ayaa racfaan ka qaatay xukunkaasi, waxaana mar kale xukuntay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo ku raacday xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka, kaasi oo xukun dil toogasho. taariikhdu markay ahayd 6dii bishii 4aad 2014 gacan ku dhiiglayaasha kala ah: kow shabaab xasan maxamuud cabdi, naanaysiisa ay tahay Salmaan, 23 jir ah, ina Batuula Cabdulle, ku dhashay Xamar, degan suuqa xoolaha. labo shabaab Shaafici Cabdi Xirsi, naanaysiisa ay tahay Shaafici Shataa, 20 jir ah, ina Xaawo Cabdi, ku dhashay Xamar, degan suuqa xoolaha. waxay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan dil ugu geysteen iyo kufsi marxuumadda Nafiso Cismaan Salaad, ayagoo u dilay keliya in ay u shaqayso hay-adaha Turkiga ka mid ah. maalintii ay taariikhdu ahayd 31 bishii shanaad 2014 maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha, waxayna ku xukuntay dil toogasho. maalintii taariikhdu ahayd 3dii bishii 6aad 2014 waxay ka qaateen xukunkii maxkamadda rafcaan. maalintii ay taariikhdu ahayd 28dii bishii 6aad 2014 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida mar kale waxay u fariisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kala ah: shabaab xasan maxamuud cabdi, naanaysiisa ay tahay Salmaan. labo shabaab Shaafici Cabdi Xirsi, naanaysiisa ay tahay Shataa, waxay ku xukuntay dil toogasho. maanta oo taariikhda ay tahay 15kii bishii 7aad 2014 waxay ku filisay xukunkii dilka ahaa lagu xukumay. sidoo kale haweeney lagu magacaabo Deeqadira oo iyaduna caawiye u ahayd raggan la toogtay ayaa lagu xukumay 15 sano oo xariga. Xasan Kaaf Cabdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.